badii aniga 4 sano aan joogay runtii waxa iga soo gaaray culays aad u fara badan oo dhinacyo badan iga imaanay waa xaqiiq bacdama aan muddo dheer saxada ka maqnayn Kenya waxay leedahay saaxiibo aad u badan oo adduunka oo dhan ah marka dawlad walba nala soo hadlay oo laha Kenya u daaya oo pressure meel walba nooga imaanay oo aan kala har lahayn hadda oo waqtiga dhamaaday oo aan sugayna maxkamadda inay soo goyso go'aan yaan loo imaanay wax leeyahay ma ka soo celin kartaan ha ma ka soo celin kartaan dacwadii ayaa dawladda qaar ku leeyihiin ka soo celiya bal aqal xumadaas fiir waa hadda oo intii aan soo adkaysanay 4 sano aan soo adkaysanay iyo intii kharash nooga baxay iyo Kenya waxay sameysay oo ay kuraastii banaysay oo keeskii lagu mudacay oo looyaradeennii ay dhamaysteen hawshii oo aan sugayna bilaha soo socda go'aan inaan helno yaa waa lagu soo xal leeyahay ma dhici kartaa inaad si culayska lidinkaga dejiyo ma ka soo celin kartaan war kama soo celin karno mana ka soo celinayno ma garad wax shakhsi u gaari kara ma aha waxaan ummadda Soomaaliyeed baa iska leh jiil hadda aan dhalan yaa iska leh macnaheedu waxa weeye waxaana lagu soo waday culays aanan caadi ahayn handadaad aan caadi ahayn maxaa la yiraahdaa haddii xitaa lagu laaluushi karo la isku dayaa in lagu laaluusho haddii xitaa maxaan ku raahdaa lagu oran karo waa lagala shaqeyn doonaa electionka soo socda wax kasta aan lagu day wax kasta aan lagu day ma garad xaqiiqatan waxa weeye bareesharkii aan kala kulanay wax sahlan ma ahayn marka taas waxay noo cadeysay dawladdaasi inay saaxiibo badan leedahay oo u hadlayo anu markaan ka hadlo intii iyada inala hadlaysay oo xiriirkeenu fiicnaa marka laga tago marka waxaan kaaga wadaa haddii ay dawladdan adkaan lahayd ay xoog lahaan lahayd dhaqaalaheena uu ahaan lahaa dhaqaale viable ah oo taagan siyaasaddeenu ay ahaan lahayd siyaasad xoogaysan Kenya iskuma daydeen inay bad nagu qabsato maxaa yeelay waxaan isku dayi lahayd 30 sano ka hor isku dayi lahayd in ay nagu qabsato naguma qabsan maxaa yeelay waqtigaasi dawlad dhisan yaa jirtay burburkii ka faa'iidaysatay marka dawlado badan oo waxaa jira sidaas oo kale uga faa'iidaysata oo raba Soomaaliya inay saas ku hayaan laakiin xaqiiqatan waxa cadaatay ummadda Soomaaliyeed inay nool yihiin wali ummadda Soomaaliyeed inay nool yihiin inay soo jeedaan damiir ahaan inay nool yihiin waa dib waan soo gaaray waa la trantrooday waa la qalbi jabay waa dhab waxa weeye dadka hamigi waa ka jabay waa xaqiiqa laakiin waxa xaqiiqa ah ummadda Soomaaliyeed wali waa nool yihiin sida ay badda ugu istaageen kulligood sida dawladooda ay u taageeraan maalin walbaba sida ay u diidaan shisheeyaha hagardaamadiisa iyo waxa uu sameynayo iyo say u soo jeedaan wax caadi ah maaha